kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada shacabka muqdisho gaar ahaan degmada yaaqsheed gaar ahaan xaafadda Tokyo ayaa waxa ay la kulmeen maanta dhacdo aad argagax u leh kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadii ugu faraha badnaa halkaasi ay geysay oo cagafyo wata oo shacabkii guriyihii ay degnaayeen si khasab ah uga raray waliba xilli habeenimo oo saqbar ah ay weerarkan ku qaadeen muqdisho oo maanta xaalad cakiran ay ka taagan tahay iska horimaad toos ah oo u dhaxeeya shacabka iyo ciidamadii loo diray burburinta dhulka ayaana ka socdo xaafadda Tokyo iyo guud ahaan degmada yaaqsheed intana gudagalay marka koowaad soo dhawo muuqaalka la gare sina shirgare halkan waa Bilan News haddii aan gudagalo degmada yaaqsheed gaar ahaan xaafadda Tokyo waxa ka socdo burburintii ugu ballaarneed tan iyo intii dowladda waqtigeedu dhamaaday ay bilowday burburinta dhulalka ay dadka shacabka degnaayeen balse ay dowladdu lahayd hadda arrinta waa ay ka soo gudubtay in ciidamo kaliya la adeegsado arrinta argagax leh waxay tahay in diyaaradihii dagaalka ee Turkiga Soomaaliya ugu deeqay ee loo yaqaano F-16 in maanta lagu garaacayo markaasi lagu argagax gelinayo ay raahdeen shacabka magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Yaaqsheed dad ayaa dhaawacyo kala duwan la gaarsiiyay oo qaarkood rasaas loo adeegsaday qaarkoodna la jir dilay sida xogtu markaasi ay tilmaamayso guud ahaan xaaladda magaalada Muqdisho aad bay u qasan tahay maanta talaabadan ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya shacabka cara xoogan ay ka muujiyeen in dad hurda oo guryahooda ku jiro xilli habeenimo ah inta loogu soo galo oo cagaf la soo qaato iyo dad burisyo wata in la burburiyo oo waliba xabad loo adeegsado runtii waa arrin shacabka magaalada Muqdisho iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ay si weyn markaasi uga xumaadeen dowladda federaalka hore waxay u sheegtay inay hakisay burburinta dhulalka kadib culaysyo iyo cadaadis uga yimid shacabka iyo sidoo kale xubnihii mucaaradka oo markaasi isbahaysanaya balse maadaama hadda dowladda federaalka Soomaaliya mucaaradkii ay god ku hubsatay oo meel aysan ka soo bixi karin ay galeen waxay markan u soo tafaxiidatay sidii hore si ka xoog badan oo ka awood badan oo ka daranba inay u burburiso dhammaan dhulalkii ay degnaayeen dadka shacabka ahaa degmada Yaaqsheed xalay lagama seexan dad ayaa alaabtooda banaanka loo soo dhigay waayeelo ku jiraan dad xanuunsan ku jiraan caruur iyo haweenba leh ayaa banaanka alaabtooda loo soo dhigay inta ciidamo markaasi la dulgeeyay runtii talaabada dowladda federaalka Soomaaliya ay qaaday dhammaan shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad ayay uga caroodeen waana talaabo muujinayso sida dowladdu aysan wax naxariis ugu heenin shacabka magaalada Muqdisho muuqaallo baraha bulshada lagu baahiyay waxa ka muuqanayo dad kala duwan oo dhaawacyo qaba oo haween ay ku jiraan waayeel ay ku jiraan kuwaas oo la sheegay in ay waxyeello ka soo gaartay rasaasta tirabeelka ah ee ciidamada ay markaasi adeegsanayaan waliba ciidankan la geeyay degmada Yaaqsheed waa ciidankii ugu faraha badnaa ilaa 10,000 oo askari ciidamo lagu qiyaasay ay dowladda federaalka halkaasi geysay diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ee loo yaqaano F-16 ayaa dul heehaabaya sifo dadka ay markaasi u kala cararaan oo loo cabsi geliyo shacabku iyagana dibadbaxyo ay wadaan iyo mudaharaadyo ay uga soo horjeedaan talaabada dowladda federaalka Soomaaliya ay qaaday xilli laamiyada waaweyn ee markaasi degmada Yaaqsheed ay markaasi taayiradu ku gubayaan oo ay isugu soo baxeen iyagoona markaasi ku dhawaaqaya erayo ka dhana ciidamada dowladda federaalka halkaasi ay geysay hadaba wixii warar ay ku soo kordhay xaaladda magaalada Muqdisho iyo sidoo kale iska horimaadka tooska u dhaxeeya dadka shacabka ah iyo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya halkan ayaad kala socon doontaan daawade fadlan halkaan xukumo oo subscribe saaro si aad u hesho warbixinada dambe